الرحمن الرحيم كلنتي وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada beejka wariye Xuseen Cali Xuseen waxaan maanta rabaa halkaan in kula wadaago hooyo Soomaaliyeed oo dhibana ah magaceeda waxa la yiraahdaa Firdawso Maxamed waxay ku nooshahay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Wajeer hooyadan sida ay sheegtay waxay ku nooshahay magaalada Wajeer waxay haysataa 5 caruur ah oo agoon ah sidoo kale waxay haysaa hooyadeed oo ayana waayeel ah hooyadan ayaa sheegtay in aysan haysan wax ay hooy ah ama wax fresh ah sidoo kale tana aysan haysan wax biila oo noloshooda maalinlaha dabra sida muuqaalka ku arkaysaan waatan iyadoo oo ka sheekeynaysa xaalka iyo habka ay u nool yihiin ku noolnahay oo jeedin joodarigan baa iskiga saaxana oo jeedin joodarigan ku saaxana kadan baa wax iskiga karsanaa oo jeedin meeshan baa iskiga noolna alxamdulillah meesha alaabta iskiga ridana oo jeedin waa tafaa meesha iska saaxana Soomaaliya ilmaha gooma haysta ilmahaygu waa 5 waana yar yihiin wili insha Allah waxaan codsan lahay inaan li soo caawiyo adduunkana walaal lagu yahay waxa Google ima haystaan meel ay saxdaan ima haystaan marka ilmaha qaar dugsiga dhigtaan iskuul ay dhiganayaan hadda shalay ilmaha baa soo fiiji laba carruur laga soo fiiji kuwa dugsiga laga soo fiiji ana ma shaqeeyo cid iska jooga dad waayeelna way ugu xariiraan Soomaaliya meel kasta joogteen waan soo duceeyna walaashiina waxooga iska dan haysanay dhibka inay la qaybsataan aan rabaa liisoo gurmado meel kasta joogteen Ilaahay soo baryay dadka raadkeena Allah sahlo Allah ni gargaaro insha Allah Soomaaliya heli soo caawiyo dantii ceebto walaalaha dadkan isku nacaan insha Allah waan soo duceeyna meesha joogteen Ilaahay nagu amaan geliyo walaalayaal wali soo caawiyo halkan joodariga meesha noo dhaxyaalo u jeedin ilmaha iskiga saxayaan shandarood ma haysano saldhigaasna maamada iskiga saxato carruurta iskala cariirsada wax Google ma haysano u jeedin meesha iskiga jirnaa u jeedin meesha wax ku karsanaa marka insha Allah ummadda Soomaaliyeed wixii nambarna insha Allah waan soo diraa inaad gurigan dhaxanta badan oo 4 saac habeen marka la gaar ilmaha iga qarqarayaan hadan xilliga qabowga la gaaray waxay hugsadaan ima haystaan waxaan jeclaan lahaa insha Allah inaad soo caawisaan oo garab la siiyo meesha joogtiinba igu soo caawiyo gurigan insha Allah Ilaahay waxaan ugu duceynaa inuu jannada guriga nigaga dhiso ilmaha agoomaha liigu soo gargaaro ilmaha agoomaha li soo caawiyo hooyo Firdawso ayaa codsanaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan inay caawiyaan qof kastaaba intii kalaankiisa ah nambarka hooyo Firdawso waxaan soo saari doonaa shaashada qofkii u baahan inuu la xiriiro wuxuu kala xiriiri karaa nambarka shaashada ka muuqda ayada ayaa wadata hooyo Firdawso qofkii sidoo kale rab inuu caawiyo wuxuu wax ugu reebi karaa ama fariin ugu diri karaa isla nambarkan shaashada ka muuqda